ilmaadarayaal iyo walaalayaal waxaad noogu soo hagaagtaan ragga halkan taagan iyo inta maqanba ay ku matelayaan xubnaha iyagan kooban aan ka hadlayno waxaad noogu soo ogaataan aan ugu ogaataan nabad 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 ujeedayada iyada ugu muhiimsan waa inta ay sheegeen wax waliba ujeeday leeyihiin walaalayaal ilmaadarayaal hadalaan iska daba nidhaahno badan ma hadhin laakiin waxaanu doonaynaa waxa qalbigayga ku jira inaanu idin tusno oo ah nabad 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 ehelnimo iyo walaalnimo ku dhisan wixii inaga xumaaday siday doontaba ha u dhacday shaydaan ka shaqeeyey waxaynu ku daweyn karnaa isu imaatin iyo wada hadal iyo dhaahid iyo wanaajin waxaan leenahay marka hore waa idin bogaadanaynaa shirka aad isugu timaadeen xaqna waad u leedihiin waxasaadna ogaataan in nidiyaddayada iyo waxaanu qabno aanu idiin soo bandhigno ah walaalnimo iyo nabad sidii lagu gaadhi lahaa iyo deganaanshiye dadka gobolkaa ku nool iyo guud ahaanba dadku waa dad walaalaa oo ehela ehelnimada iyo walaalnimadana wixii shaydaanku ka shaqeeyo inay rag u kacaan ee u guntadaan oo la wanaajiyaba ayaa dhici jirtay haddana tii oo kale ayaynu u baahannahay sida odayaasha iyo salaadiinta iga horreeya ay yidhaahdeen ilmaadarayaal iyo walaalayaal waxaad noogu soo hagaagtaan ragga halkan taagan iyo inta maqanba ay ku matelayaan xubnaha iyagan kooban aanu ka hadlayno waxaad noogu soo ogaataan aan ugu ogaataan nabad 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 iyo gogol nabadeed biidni illaahi tacaala wax kastoo qaldana lagu saxo dadkana lagu abuuro jawi waxay isu yihiin iyo wada noolaanshiyahooda lagu kala bogsado taasaad talada ku darsanaysaan niyad wanaaggaasaad ku darsanaysaan walaalnimadaasaad ku darsanaysaan fariintaasaanu shirka ceelbu ka socda waxgaradka iyo salaadiinta iyo dhammaan qaybaha bulshada isaga yimi ee warsangeli aanu idiin soo dirnay cid kasta oo dadka ehelka walaalahaana waxaanu leenahay walaalayaal wax sharaf iyo wadaag iyo walaalnimo lagu waayey ku gaadhi mayno xumaan biidni illaahi tacaala ilaahayna inaguma kalifaynayn xumaan isnidhaa wax ku xalala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaantaas waxay ku socotaa shirka ka socda ceelbu aad iyo aad baanu idiin salaamaynaa shirka waa taageersannahay waa soo dhowaynaynaa waxaananu ka filaynaa wax aad iyo aad iyo aad u wanaagsan baanu ka filaynaa malihin warsangeli waxba kuma dhicin malihin warsangeli waa iska baxay waxbaa jira dhaqaajiyey oo warsangeli halkaa gaadhsiiyey taariikhda warsangeli intii soomaaliya burburtay cid ay ishayaan iyo cid ay isdileen iyo meel ay cid ku kala tirsadeen midna laba maqalsay runtu tahay nabadgelyada dhinaciinna aad iyo aad iyo aad ba uga hayseen wada jirka aad ba uga hayseen wada noolaanshiyaana aad ba uga hayseen waxa maanta inagu soo kordhay waa waxoogaa inagu yimi oo qadara weeye cid kastana way ka iman kartaa xumaantu hadday dhinac iyaga ka timi oo shaqaaqoon yaryaroo hore dhaceen oo dhinacyada kala tirsadeen oo tani weynaysay inaan wax ka qabannaa baanu diyaaruna inaynu isugu nimaadnaa baanu diyaaruna inaynu haddii ilaahay ka dhigo hawshaa iyada a meel ku tiirinaa baanu diyaaruna idinkana waxaanu idinka eegaynaa oo odayaashiiyo waayeelka ka eegaynaa inay iyaguna waddadii taa loo mari lahaa ay soo jeexaan maanta gacantiinay ku jirtaa idinkaa meel u fadhiya idinkaa isugu tegey idinkaa rogrogaya idinkaa dhinac walba ka eegaya dadku waa dhowr nooc dad badanoo dagaal doonaya baa ku jira shirka laftigiisa afku dhiiglaa jiraya gacanku dhiiglaa jiraya kuwo kaloo idin abaabulaa jiraya kuwo kaloo dabshidaa jiraya kuwo nabaddii doonayaa jiraya kuwo ehelnimadii doonayaa ku jira intaaba waxaanu leenahay annagu kuwa ehelnimada iyo walaalnimada iyo wada jirka iyo wada noolaanshiyaha doonaya yaanu taageersannaha intaa in la eegna halkana idiin joogtaa oo wada ehelkiina oo walaalihiina ayaa halkana idiin joogtaa waxaanu doonaynaa walaalayaal inaynaan inta xumaanta taageerin inaynaan inta xumaanta dabagelin inaynaan inta ina burburinaysa dabagelin
inteenna wanaagga wadda in la taageero annana diyaar baannu idiin nahay wax allaale waxaa ku bogsanaysaanna diyaar baannu u nahay wax allaale wixii walaaladiin idinkala gaadhay inaannu idinkala bogsiinana ee reer ceergaabo kala gaadhayna diyaar baannu u nahay haddii ilaahay ka dhigo aad iyo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin arrinta yadaana inaa ajiibtaan baannu u baahannahay waa codsi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu